marka hore ilaa baan mahad celinaynaa xalankeena isugu keenay marka labaad waxaan mahad celinayaa deegaanka reer Damala Xagaro oo aan maanta ugu nimi booqasho anagoo ka soconaa baarlamaanka Puntland isbarashada ugu noqon mayno waa leenu ka sheekeeyay odayaal anagu waxaan ugu soconay laba arrimood mid waxay tahay inaan idin qaybsano taxsida iyo dhibta dhacday iyo magaranaysa arrintii dhacday oo qadar rabbi baan u deenaynaa arrinta inaan ka taxsidayno inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay baa qadaray tan kale waxay tahay inaan idinka mahad celino isxakamayseen idinkoo magaranaysa khasaare inta laakiin soo gaaray saa isu xakamayseen dhibtii meeshada ugu joojiseen ummadda ugu soo joogsateen aad baan idinka mahad celinayna insha Allah wagday marka arrinta koowaad waxay tahay inaan marka hore taxsiida la qaybsano marka labaadna idinka mahad celino isxakamayntiina iyo magaranaysa qaabkii aad magaranaysa u dhaqanteen oo ehelnimada iyo dadkan arrintu ka dhacday waa dad qoysa oo isku faamiliya oo kulay maanta aan la maleeyay in arrintaas dhacdo laakiin kulay wax qoraa weeye wax qoraana lama baajiyo marka waxaan leenahay insha Allah waa maasantihiin waan iswareysan doonaa insha Allah waan idin la joogi doonaa caawa iyo habeen dambe iyo maalmaha insha Allah xildhibaanada odayaasha deegaanka oo ugu horeeyo wakiilka caaqilka dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aragtida iyo ujeedkan u soconayna wuxuu ahaa shaqaaqadii halkan ka dhacday oo runtii ahayd kollay inta jiraalkay ama dhagtaydu maqashay dhacdooyin noocaan oo kala inaysan beelaha warsangelaysa dhexdeedu ka dhicino xaajo ugub inay tahay laakiin dilku meelo badan waa uu ka dhacayay siyaabo kale waa uu dhacayay dhibka iyo dagaalka waa istaqaanaan laakiin waxa ugu baa xaaladda safmarkaa ee beelaha walaalaha ee wada dhasho dadka iskugu xiga ka dhacay ee ugubka run ahaantii marka koowaad waa ka tacsiyeynayna wixii halka ka dhacay xanuunka badnaa ee dhimashada iyo dhaawaca balha marka labaadna waa in kaga mahad celinaynaa sida tolnimada leh khiyaarnimada leh uqaalnimada leh guurtinimada leh inaad isku xakamayseen oo aad dhalinyaradii u xakamayseen sababta waxa la yiri aqil waxa uu safofsan ba u soo hayday aragtida muhiimadeedu waxay ahayd sida aqilku uu idin sheegay deegaanada aanu ka nimid ama matalaadaha iyagu sida magaca aad ka maqlayseen annagu qabaa'ilada si qunjuraafan isku laynaayo waliba ay ku badan tahay laakiin waan isku laandheeraynaa mararka qaarkood laangaabku inta badan ma haro laakiin laandheeraha inta badan samro oo dulqaadka badan muujiyo waad maqlayseen dagaalo badan oo dhulbahantaha dhexdiisa ka dhacayay inta badan ka dhacayay dadka isku deegaanka isku dhow isku qabiilka waliba isku meesha wada dega colaadana waxa ugu daran baa la yiraahdaa ninka raadkaaga yaqaana oo codkaaga yaqaana oo ciidaada yaqaana dagaalka ka gala ba ugu cawaaqib xun marka run ahaantii waxa la yiraahdaa waqti gaaban hadalkina la gaaban hadalkaan oo gaabinaya waa in kaga mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa hadii Ilaahay idmo sida guurtinimada leh oo tolnimada leh oo aad isku xakamayseen inaad ku sii wadaan run ahaantiina aanu in ku boorinayno sababta wiilka wuxuu yiri aaba maanta saan u dagaalamay ma arkaysi wuxuu yiri waa intaas oo aad kala dhawaatid oo ninka intaad waranka ka soo saadhaad ku celis sida guurtinimada leh oo tolnimada leh oo dhalinyarada u xakamayseen inaad kala sii dhawaataan baan in ka rajaynaynaa insha Allah hadii Ilaahay idmo kollay hawshana sida la iskugu soo gaaray waxaan u rajaynaynaa inay u dhamaan doonto hadii Ilaahay idmo meelo kale inuu iska fiirinaynaa maanta gudaheena iskamaynu fiirinaynaa in xabad ka bilaabato marka laakiin waa ka tacsiyeynaa wixiina dhacay mahad celintaasna waa in wadnaa waana wada joogi doonaa hadii Ilaahay idmo waan is wareysan doonaa aad iyo aadna waa mahadsantiin maqsadkayga iyo ujeedkaygu dabcan hawsha dhacday waa la soconaayo waa tacsi iyo duco inaan u ducayno dadkii halka ku dhintay waa bil Ramadaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka waraabiyo jannadiisa qofku markuu dhinto caalamka uu tagayaa marka isaga waxa uu dana in halka uu aaday Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu kula kulmiyo raxmadiisa iyo naxariistiisa inaan u ducayno Ilaahay ha u naxariisto dadkiina ka dhintay kuwa dhaawacmana Ilaahay ha booga dhagayo oo caafimaad siiyo sida la socotaan garowaanu ka nimi
garow lafteedana inama dhaawac la keenay way fiicnaayeen runtii oo dadkii markii dhaawac lagu keenay hal nin oo adinka iyo waxaas la lahaa waa la jaraya iyo wax saas ka soo socdeen baa jiray isagana sidaan isku maanta la qaado bay ahayd sidii kulli taladu ahayd oo xagga loo dhigo xamar hadii diyaarad la helo laakiin ragga kale way iska fiicnaayeen way ladnaayeen hal meel bay wada joogeen hal isbitaal bay joogeen halkan arrimaha ka dhacay sida la sheegay waxa way xilliga iyo meesha ay ka dhacday iyo wuxuu dhamay culays bay runtii ahaayeen xilliga colaadaas u timi oo duruufaha amni oo gobolkeena ka jira aan ognahay iyo meesha ay ka dhacday oo ah waliba deegaanadii dadku ay culayska amni ka dareemayeen dadka ay ka dhacday oo ah dadkii hawlaha iska garabsan lahaa oo ehelka ahaa oo deegaanka wadaagay oo dhulka wadaagay oo cid isugu dhawaa intaasuba waxay keentay culays runtii nin walba meeshuu joogay laga anfariiray oo maaragtay runtii aad looga argagaxay laakiin dhacdadu adduunka waxa ugu imanayaan waxay u baahan tahay oo aanu idinku nimi culayskuna uu xaqiina u badnaa in arintaas qayb ka noqotaan xalkeeda iyo maareynteeda iyo amni sugidda iyo iswaansashada iyo maaragtay isqancinta idinka gudihiina ah inaad xoog saartaan ehelkuna kolley iyo dadka xigtada waa soo gurmadeen waa yimaadeen ama ciidan ku yimaadeen ama cuqaal ku yimaadeen iyo odayaal ama siyaasiyiin ku yimaadeen waana loo joogaa laakiin idinka waxa la idinka filayaa waxay tahay culays ka dhacay dhibaatadiisu kulligan wayna wada saameysay runtii culays bayna ku wada tahay laakiin si gaar ah culayska wada la dareemeynaa inaad hawshaas dusha u ridataan culayskeeda oo aad qayb ka noqotaan xalka iyo maxaan ku leeyahay wax ka hagaajinteeda maanta wax ka hagaajin baa inoo taala waxba hadii wax kale ku dardarmaan macna ma soo kordhinayso geeridu waxa ma soo kordhiso hadii meel ka dhacdo iyo hadii xagga ka dhacdo waa geeri waa qof meesha ka baxay laakiin dadkii in la nooleeyo oo inta hadhay waa joogtaa ay wax wanaajiso ayaa dadnimadu ku jirta iyo wanaagu taas waa idinka rajaynaynaa dadkeedii baa tihiin gurtideedii baa tihiin dadkii wax wanaajin jiray oo ummadda kala hadii wax yimaadaan u iman dhex joog jiray baa tihiin inta in ka badan baa la idinka filayaa waxaan rajaynaynaa insha Allah in ay si wanaagsan inuu ku soo dhamaadaan arrimaha culayska oo ku yimi anaguna kullee waa joognaa ayaamahan xagga odayaasha iyo suldaankii iyo raggii kale oo odayaasha oo yimi iyo kullee iyaga waan soo dhaafnay hadda idinkaan ku soo horeynay waan ku laaban doonaa insha Allah meelaha kale oo mudan in la marana insha Allah waan mari doonaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa hawshaas inuu ku soo dhameeyo si wanaagsan culayska iyo waxyaabaha aynu ku yimin ilaahay noo fududeeyo intaas ilaahay ka rajaynaynaa bil Ramadaan maba ahayn munaasabna ma ahayn bisha tan oo kale inay dadka muslimiinta ah waxyaabahaas ka dhaxdhacaan laakiin way dhacday waana qadar insha Allah intaas ayaan ku soo gaabinayaa aad iyo aad u mahadsantihiin waa idinka mahad celinaynaa idinkoo culays iyo socod iyo idin saaran yihiin misana xilliga aad soo qaabisheen oo soo dhaweyseen